dhaqamo ay iska ilaaliyaan dadka caqliga badani si aanay noloshooda u khasaarin. haddaba maxay yihiin dhaqamadaasi? kusoo dhawaada barnaamijkeena. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kale riix kambaleelka si muuqaalada soo gelina kugu soo dhacaan markaba. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaa jira dhaqamo ay iska ilaaliyaan dadka caqliga badan si ayna noloshooda u khasaarin. dhaqamadaasi waxay noqonayaan kuwo aan kusoo koobayno dhowr qodob. qodobka koowaadi waxau noqonayaa kuma xiraan noloshooda wax dhaqaale ama haysatid. dadka caqliga badan inta badan noloshooda ugama rajo dhigaan ama ugama quustaan inaanay wax dhaqaale haysan ama jeebkoodu aanu buurnayn. qodobka labaad waxau noqonayaa iskuma xiraan nin hebel si ay ugu guulaystaan hawshooda. dadka caqliga badan inta badan iskuma wereeriyaan ama uma sii maraan howlahooda gaarka ah shakhsiyaad gaar ah kuwaas oo ay ka rajeynayaan inay ku guulaystaan howlahooda. qodobka saddexaad waxau noqonayaa uma ekaadaan dad mas-uuliyad la-aan ah, wax kastana way waqtisaysan yihiin. qodobkani waxau muujinayaa sida dadka caqliga badan ay wax walba mas-uuliyad isaga saaraan, wax kastana ay ugu kala habaysan yihiin oo ay ugu kala qorshaysan yihiin, uguna kala mudaysan yihiin. qodobka afraadi waxa uu sheegayaa ma dareemaan quus iyo rajo xumo daran howlaha qaar marka ay ku adkaadaan. dadka caqliga badan inta badan kama tanaasulaan ama rajadoodu ma xumaato marka howlahu ay ku adkaadaan ama caqabaduhu ay ku bataan, balse waxay u arkaan waxay cashar ka baranayaan iyo tallaabo hore ugu sii dhiirigelinaysa inay u dhow yihiin jidkii saxda ahaa. qodobka shanaadi waxau noqonayaa ma dul joogsadaan qaladaadkii hore ay galeen. dadka caqliga badan inta badan iskuma wereeriyaan ama waqtigaas kama qaadaan inay ka qoomameeyaan ama ay ka shanlayaan khaladaadkii hore ay galeen. qodobka lixaad waxau noqonayaa kuma tiirsanaadaan dadka caqliga badani iska gal hawshaas iyo nasiibka. inta badan dadka caqliga badani wax walba waxay ku keenaan dadaalka iyo kartida hawshan ay ku qabteen, mana aha kuwo ku tilmaama waxay iska bilaabeen ama iska galeen howlahoodu. qodobka toddobaad waxau noqonayaa ma aha dad fududaysta howlahooda muhiimka ah. qodobkani waxa uu noo sheegayaa in dadka caqliga badani aanay ahayn dadka dib u dhaca iyo caajiska leh, kuwaas oo dib u dhiganaya howlahooda gaarka ah ama kuwa maalinlaha ah ee u yaala. wax kastana mas-uuliyad ayay iskaga saaraan mana fududaystaan howlahooda. qodobka kale ama qodobka sideedaad waxaynu oranayaa kama gaabiyaan inay khaladaadkoodii hore wax ka bartaan. dadka caqliga badani kama qoomamayaan inay khalad galeen, balse waxa ay tahay sababta inay bartaan waxa khaladaad hore ay soo sameeyeen waxa ay barayaan. khaladaadkaasoo ay uga faa'iidaysanayaan inaanay mar dambe noloshooda dib ugu soo noqon. qodobka sagaalaad waxau noqonayaa ugama tagaan fikirkooda wanaagsan kaliya dadka asxaabta ay leeyihiin oo uu cajabin waayey. dadka caqliga badani ugama tanaasulaan fikradooda iyo caqliyadooda inuu cajabin waayey ama uu ka heli waayey qof ay asxaab yihiin ama bulsho ay isku xeeran yihiin. qodobka tobnaadi waxau noqonayaa kuma hadlaan hadal badan oo aan waxqabad lahayn. dadka caqliga badan inta badan maaha kuwo iska dhurma ama iska sheekeeya, kuwaas oo aan wuxuudu waxqabad lahayn balse uu ballanqaadun iska yahay. qodobka u dambeeya 11aad ee aan kusoo gabagabaynaynaa wuxuuna oranayaa ma dayacaan fursadaha u kordhinaya khibrado badan. dadka caqliga badani inta badan iskama sii daayaan fursadaha ay ka helayaan waayo aragnimada iyo xogaha dheeraadka ah ee noloshooda ka saacidaya inay waxyaabo badan khibrad u yeeshaan.